dabkani ayaa waxa uu bilowday saacadu markay ahayd 6 aroornimo ee saaka waxaana uu ka kacay dhismayaasha shirkadda ganacsiga ee Badar ay ku leedahay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud marqura ayaa waxa dabku uu ka kacay qaybta kaalinta shidaalka waxaana ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta shirkadda in dabkani uu ka dhashay diinimada shidaalka soo qaada oo waliba ciladaysaneed dabka ayaa waxa uu ku baahay qaybo badan oo kamid ah xarunta sida qaybta maqaayada qaybta biibitada qaybta kaydka shidaalka iyo waliba qaybo kale oo dhismayaasha u dhow dadka ayaa waxay ku guuleysteen in ay markaasi dabka qaybo kamid ah soosan ugu faafin goobaha kale ganacsiga sida shirkadda Hormuud iyo qaybo kale hol ayaan isaga xijinayay meeshan biyaas qowga hol fustooyin qarxa iyo haamu weyn qarxa ayaa la kulanay hadda saakay salaad su'aalisay dabka bilowday baa wali socda saacaan taaganahay gudoomiyaha degmada Gurceel Cabdullaahi Maxamed Barra Beenta oo goobta dabka ka kacay kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay xaaladdu tahay xilli oo salaad subax laga soo baxay dabkaan bilowday waxaana ka bilowday maqaayada weyn oo Badar shirkadda weyn oo Badar oo ka bilowday haddana ilaa iyo saacadan wali Badar gudaheedii ka muuqsan ayadii darbigeedii oo haystaa hadda shirkaddu ayadaa ballaareed oo shirkad weyn ah ilaahay xamdiis waxa inaan hadda far wax nafi ku bixin laakiin maal ayaa ku khasaaray marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ka rajaynaynaa inuu musiibadan dhacday inuu naga joojiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ka rajaynaynaa umadiina waa halkan dhoomano qof walba intay qaban kartaa ay qabanaysaa qofkii sakeel wax ku qabanaysa qofkii cagaf wax ku qabanaysa qofkii hooyad wax ku qabanaysa qof walba way ka qayb qaadanaysaa dareenka degmada Gurceel oo saaka waa bariisantay degmooyinka marka noo dhow oo dabdamisyada haysta waxaan ka codsanaynaa inay soo gurmadaan arrintan wax naga qabtaan ayaan ka codsanaynaa shirkadda Hormuud oo kale haday dabdamis meel ku ogtahay inay si degdeg u soo gurmato meeshan ayaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala annaguna hadii ilaahay yiraahdo intii karaamkana oo wadno kama daali doon hadii ilaahay yiraahdo gudoomiye marka arrintu waa dhacday waa arrin musiibo ah degmada inta la eeg oo dakhliga iyo dhaqaalaha inta yaala ma moodaa dayac dhankii maamulka iyo ganacsatada inay ka gaabiyeen oo musiibada la hortagi karo kor aan ka wallahi horta waa ogtiino maamul goboleedyada dabdabisi ayagu ay leeyihiin oo horta ma jiraan dawladda dhexe waayo oo waxa Soomaaliya oo gacanta xilligan ku haya in badan ayaan ugu tagnay dabdamis inaan weydiisano annaga ka maamul ahaan dhaqaalaha aan ku tagana ka maamul ahaan dabdamis waa ogtahay sida uu yahay qiimo jooga in badan ayaan ganacsatada soo dhacay hawshiisina waa ku jiray waxaan rajaynaynaa inuu soo gaaro laakiin ma aysan noqonin inaan ka faa'iideysano saaka sida loo yaalo marka wax walba way dhacayaan dabka oo socday 6 saac oo xiriir ah ma jirin wax dabdamis ah oo deegaanka iyo guud ahaanba gobolka oo ka qayb qaatay daminta dabkan masiibada ah Cabdulqaadir Gure Universal TV Gurceel magaalada dunta sheegna maahan